wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Somaliland mudane Nuur Cusmaan Guuleed oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo uu ku joogay gobolka Sanaag way safarkiisan ku wehelinayaan agaasimaha guud ee xabsiyada iyo xuquuqda insaanka Somaliland. Agaasimaha waaxda wasaaradda qorsheynta Somaliland ayaa markii ay ka soo guriyeen noqdeen magaalada Areegabo kormeer indhayn iyo kurgelida xaaladda ku soo maray xabsiga weyn ee degmada El Afweyn iyo xaaladaha dhabta ay ku sugan yihiin maxaabiista ku xidhan jeelkaasi iyo sidoo kale ciidanka jeelkaasi. Waxa uu halkaasi warbixin kaga dhageystay taliyaha xabsiga weyn ee degmada El Afweyn Kabtan Yaasiin Cali Maxamed oo uu sheegay kuna nuuxnuuxsaday isbedelada iyo cadaaladda iyo waxqabadyada dhabta ee muuqan kara ee ay ka qabteen jeelka isla markaasina ay maxaabiistu helaan dayactir fiican iyo cadaalad wanaagsan. isaguna wasiirku xadhiga ka jaray dhismayaal cusub oo halkaasi ay ka hirgeliyeen walibana si mutadawacnimo ay kaga hirgeliyeen ciidamada asluubta ee xabsiga weyn ee degmada El Afweyn. balse Kabtan Yaasiin Cali Maxamed waxa uu sheegay inay dawladuna dhankeeda ay ka caawiso wixii tabantaabo taageero iyo dayactirka xabsiga. waxaasna halkaas uga mahad celiyay agaasimaha guud ee xabsiyada iyo xuquuqda insaanka Somaliland Maxamed Ismaaciil Ciise oo sheegay inay talaabadan iska wax u qabso ay ku shaqeeyeen ciidanka asluubta ee xabsiga weyn ee degmada El Afweyn ay tahay talaabo mudan in lagu daydo. waxaan ku aragnay wax mucjiso waxaan halkan ugu mahad celinaynaa oo aan amaanaynaa taliska ciidanka asluubta gobolka Sanaag oo taliyaha qaybta iyo taliyaha xabsiga iyo ciidankuba waxaad muuqatay inay dadaaleen runtii aad iyo aad arintani waa arrin ku dayasho mudan waanu hambalyeynaa. sidoo kale waxa isna gabagabadii halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Somaliland mudane Nuur Cusmaan Guuleed oo aad iyo aad uga mahadnaqay isla markaasina sheegay in arrinkan ay maanta sameeyeen ciidanka asluubta ama jeelka weyn ee degmada El Afweyn uu yahay arrin lagu farxo. warbixin waxaan siiyay taliyaha xabsiga Yaasiin Cali Maxamed waxa kale oo halkan ku aragnay dad iskooda wax u qabsaday macnaha degmada xabsigii dhisatay xafiisyadeedii dhisatay wixii kale horumaray ku sameeynaysan ku jirta yaan halka ku aragnay waan ku hambalyeynaa. waxa weeyaan waxaan loo baahan yahay meel kasta uu joogo nin Somaliland dari waxa hawsha uu haya inuu wax ku daro waa shay muhiim oo mudan in dalka guud ahaanba iyo gabi ahaanba gobolada Somaliland ay ku daydaan. waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Somaliland El Afweyn.